haddii aad ku cusub tahay janaalkeena Taqwa Tube subscribe saar dambalelka riix si aad u noqoto daawadaha koowaad mahadsanid jazaakallahu khayran غلت الغدر غليانا ان سعر كسوق مركو كعو waxa la oran karaa غلا السعر غلاء eraygu asliyan waxa weeyaan الارتفاع ومجاوزة الحد وaf Soomaali ku ah wuxuu inuu dhaafo xuduudii loogu talagalay ama soohdinta inuu ka talaabo quluwigu marka waa soohdin dhaaf ama waa xadgudub qofku uu ku xadgudbo halka kan marka aynu quluwiga ka waramayna waxaynu u jeednaa sharciga ku xadgudubkiisii culimadu terminology-ga ama istilaaxaasi ama eray bixintaasi marka ay sharxayaan waxay ku tilmaamaan waa iyadoo lagu xadgudbo diinka ama shay lagu xadgudbo ama ammaantiisa ama caydiisa oo wixii uu xaq mutay la dhaafiyo mar kale waxay ku tilmaamaan inuu yahay xuduudii sharcigu shayga u dhigay oo laga talaabiyo iyagoo ku fasiraya aayaadka quraanka ilaahay leeyahay subxaanahu wa ta'ala ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي أما فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا markaan soo duubno terminology-ga ama eray bixinada tirada badan lee culimadu tilmaamaan waxaynu isugu soo koobi karnaa waqtiga kooban daraadeed inay tahay xuduudii shareecadu ay shay kasta u dhigtay oo la dhaafo siiba loo dhaafo dhan la isleeyay weliba waad wanaajinaysaa qofku isagoo isle wax waad wanaajinaysaa oo inta badan quluwiga markay ka waramayaan waxay yidhaahdaan min baabil ikhlaaska kuma jiro laakiin waa baabil mutaabaca camalku dhanku ka xumaanaya waxa weeyaan xagga raacdinta la raacayo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo shaygaasi siduu u qabtay si aan ahayn baa loo qabanaya marar badanna waxay yidhaahdaan sababaha keenee ugu waaweyn waxaa ka mid ah xamaaska zaa'idka ee aan aqoonta ku salaysnayn qofka oo wax u xamaasadooda ama raba wax inuu si fiican u qabto aqoon darro si ay jirto waxaana culimadu sheegaan inta badan oo yidhaahdaan islaamnimadu sideedaba waa wasat waa meel dhexe dadkuna laba dhinac mid unbay inta badan u kacaan ama min baabi altaqsiiri waatasaahuli waatasaamux dhinaca gaabiska iyo acmaasho aan la samaynin ayaa loo kacaa amase wax wanaagsan qaba la isdhaa xagga kale looga murkudaa amase looga baxaa oo dhinaca waxa wanaagsan qaba sida loo leeyahay ayaa xuduudiisa la dhaafiyaa eraygan marka aynu tilmaamayno quluwiga qoladii tarjumaysay xadgudubka ku tilmaameen ama xagjirnimadu mala waa tatarruf ayay noqon kartaa fi luga alcarabiya laakiin waa qofka oo soohdinta dhaafa soohdimii sharcigu uu jideeyey oo la dhaafo quluwigu inta badan laba noocba wuu u dhacaa kow quluwi caqiidada ku dhacaa jira quluwi camalka ku dhacana wuu jira ka caqiidada ku dhaca waa kii ahlu kitaabku intooda badan ay ku dhaceen wixii maalan nebi ciise calayhi salaam wixii uu alla ku sifeeyey waxaan ahayn bay ku sifeeyeen iyagoo ka xadgudbay oo qolana hoos uga dhigtay wuxuu ahaa qolana kor uga qaaday wuxuu ahaa ilaa ay xaddul uluhiya gaadhsiinayeen waxaa ka mid ah maalan khawaarijtu quluwigay ku dhacday ama shiicadu wuxuu dhami waa xadgudub masaa'il ka mida sharciga lagu xadgudbay oo booskay lahaayeen boos aan ahayn la siiyey midna waa quluwi camalka ku dhaca waqtigan aynu hadda joogno dadku in badan bay ka hadlaan masaladaasi quluwiga la yidhaahdo ama xadgudubka ama xagjirnimada iyadoo aan odhan karno siyaasaadka duwaligee maanta jira baa soo dhoweeyey in laga hadlo dabeetana dad u cuntama iyo cid aan u cuntamayba aad bay uga hadleen iyadoo mararka qaarkood marka extremiska ama irhaabiga ama qofka qaalka la fasiraya uu yahay ka shanta salaadoodba tukada ama astaamaha qofka muslimka lagu arko la ka muuqda lagu tilmaamay inuu yahay kii xadgudbay asliyan waxaynu rumaysanay in ilaahay quraanka ku leeyahay wama jacala calaykum fi ddiini min xaraj ma yuriidu allahu liyajcala calaykum min xaraj
laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha islaamnimadu dhibiba kuma jirto xadgudubku islaamnimada asliyan kama mid aha laakiin in badani waxay maanta u dhacaysaa warku mahmaadii soomaaliyada ahayd reeraan doonayey roob maygu eriyey ninkii geeljirahee la yidhi guri habla ku jiraan buu ku ag warwareegay ceebse waxa ahayd in guryaha dadka la galo dabeetana isagoo ag marmarayaa roob helay xaggaba ma eegin xagga guriga uu cararay markaa isagoo la reeraan doonayey roob maygu eriyey qadiyaddu marka maanta marka xagjirnimada laga warramayo iyo miidiya dunida yaalla iyo dadka reer galbeedka ama dad badan oo muslimiinta ka midi qaabkay u dhigayaan wuxuu u yaallaa qaaba ah wax allaaliya wixii islaam ku sifoobo oo dham inuu yahay radical ama cid xadgudbaysa oo aan islaamkii muctadilka ahaa islaam muctadili ma jire islaamka oo dhan baa ictidaalka ah islaam oo dhan baa ayaa tawasudka ah umma wasat buu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay inay dadka muslimiinta yihiin markaan warka soo koobo wakhtigoo kooban daraaddii waxaan odhan karnaa uun ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu imaam ibnu alqayim uu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inaga reebay diinta inaynu ku tashadudno oo wixii layna faray aynu dhaafno haddaynu tashadudka ama isku adkayntaasi la nimaadno ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuu inugu adkaynayaa qadaran wa sharcan buu leeyahay xagga qadarka waa laynoogu adkaynayaa iminka dadka waswaaska ah qof baa weysaysanaya dabeetana wuxuu is odhanayaa weysadii maad hagaajin wuu ku celinayaa maad hagaajin ilaa iyo waswasadiisaasi ay noqoto ghuluw qadaran baa kaa loogu adkeeyey buu leeyahay waa kii ibnu caqiil u yimi oo kale alimaam ibnu alcaqiil xambali ayaa waxa la yidhi nin baa u yimi wuxuu yidhi niyow biyahan quusaa biyahan galaa buu yidhi dhowr goor dabeetana wuxuu maan ka soo baxa anigoo isle weli ghusligii maydhashadii kumay xasilin biyuu galayna shakigii wuxuu geeyey markaa inuu is idhaahdo mala maydhashadaadii may xasilin ibnu caqiil siduu war kale uga sugayey buu wuxuu ku yidhi saqatat canka salaa salaad adiga laguguma le buu ku yidhi salaaddii way kaa dhacday marka wuxuu yidhi oo salaaddii say uga dhacday nebigu wuxuu yidhi waxaa qalinka laga dul yeelay saddexda waxaa ka mid ahaa almajnuun xataa yafiiq mar haddaad intaad biyo gashay garan lahaada inaad maydhatay iyo inaad maydhanin adiga salaad laguguma laha buu yidhi yacni qofkii wuu xadgudbay ilaa xad uu gaadhsiiyo inuu fahmi kari waayo isagoo maydhay inuu haddana isweydiiyo waswasadaa la mida waswasadu waa qadaran bay kuugu adkaanaysaa inaad aragto qof salaad xidhanaya oo allahu akbar yidhaahda oo in yar markuu joogo haddana allahu akbar ku celiya oo waxaa arkay ninka soomaaliyeed igu yidhi saan allahu akbar u lahaabaa salaaddii laga baxay waa salaad buu xidhanayey siduu u xidhanayeyna salaaddii waa laga baxay idan wuxuu ibnu alqayim raxmat ullaahi calayhi wuxuu leeyahay qadaran bay ugu adkaataa buu leeyahay qofka qaalka ee diinta ku xadgudba sharciyanna waa lagu adkeeya oo waxaad garan kartaa qisadii reer banu israa'iil qur-aanka ku soo aroortay war saca qale baa la yidhi dabeetana kolba waa kuwii soo noqday sacu caynkuu eegaya midabkuu leeyahay caynkuu waa lagu sii adkeeyaa un marka iyagu sii baadhista ku sii tiro badiyaanba ghuluwigu markaa ama xadgudubku ama soohdinta sharcigu dhigay oo la dhaafo waa aafo qadiima bay yidhaahdaan waa xanuun soo jireena oo bashariyada hore u hayn jiray waa xanuun gaadhsiiya dadka halaag waa xanuun ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka uu ku tilmaamayo ummadda muslimkaana waxaa lagu sifeeyey inay tahay ummad dhexdhexaada wakadalika jacalnaakum ummatan wasata litakunuu shuhada'a cala annaas wayakuuna alrasuulu calaykum shahiida qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala laba aayadood buu kaga warramayaa masalada tan labada aayadood baa ahlu kitaab baa laga warramaya laakiin ummadda tanna waxay u tahay digniin loo tilmaamayo dariiqay kuwii hore ku lumeen inaanay iyana raacin si ay u lumaan si awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay yaa ahla alkitaabi laa tagluu fii diinikum walaa taquluu cala allahi ila alxaq inama almasiixu ciisa bnu maryama rasuulu llahi wakalimatuha alqaaha ila maryam وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم آية كله إلهي وحلي قل يا أهل الكتاب
لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لبدنا آيادود با إلهي سبحانه وتعالى وحكا ورميا أهل كتاب كو دينتينها كحد قدبين با إلهي سبحانه وتعالى. وأهل كتاب كو دين تسيب وحد قدبين قال واحد قدبتي والنبي عيسى وحيد أهدين ويل حلال لغد علي ماها يهود قال أنا واحد إذن حد قدب كودو وحويا لأن النبي قد عافيين منزلة النبوة نبي النمدة يوناق يرشد قوي كردقان قف باضية قال هذا لنا واحد قدبتيو منزلة النبي النمدة انت عافيين بي وحي قارسيين محي بوسكي إله النمدة ووحي أهدين وابن الله أما هو الله أما الثالث الثلاثة أقواش بدنا إليه قار ليس قابين إلها قار ليس قاب إلها قار لو سدح ذا أغنوما وسدح ذا إله إسكو إلها وحك استبها الشيغاني وركو دردن مرك الله إسكو دره وحو شيغي يا غلوي أما حد قدب غلوي قاس إلهي سبحانه وتعالى ولا بدا أيضا بكت المامي وحال الرباين نقل لينو قدقه وايو والسبب كم ده سببا لغوها لاكسبه آيات كالو قرآننا إلهي أقواشي وضمركا وكت المامي غلوي الشيغيس لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد أما وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله مركا إنه حق أحاديث النبي وقعنا عليه الصلاة والسلام أحاديث تربى ضنبا قصة أرورتي وحد قدبك لين غير ريبيو أحاديث سوى حكم ده كوا عامة وحكم ده كوا صلاة كصابسا وحكم ده كوا صوم كصابسا وحكم ده كوا حج كصابسا وحكم ده كوا نذر كصابسا وحكم ده كوا عبادات كجودهان كصابسا dhammaantood waa axaadiid laynaga reebayo inaynu xadgudubno oo ka gudubno soohdintii sharcigu inoo dhigay inagoo isla wax wanaajiya aan dhowr tusaale qaadano xadiidka imaam an-nasaa'i iyo qeyrkiiba ibnu maajah nasaa'i ibnu maajah axmed soo saarayaan sheekh al-albani raxmatullaahi calayhina saxiixa ku tilmaamayo nabigu calayhi salaatu wasalaam xajkii iyadoo la joogo oo dhagax tuuradkii la rabo in la dhagax tuurto oo musdalifa la joogo ayuu wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ibnu cabbaas orodoo waxaad ii soo qaadaa qururuxii la tuurayey qururuxii la tuuro ayuu nabigu yidhi ii soo qaad wuxuu yidhi dhagxan yaryar baan soo qaaday markaas oo kuwan wax lagu tuurtuuro ee yaryar ah yacni dhagxan yaroo xabadda fuula leeg bay dhahaa culammadu ayaan soo qaaday buu yidhi markaan nabiga u keenay calayhi salaatu wasalaam buu kor u taagay dabeetana wuxuu yidhi biamhaali haaulaa waar kuwaasoo kale tuura wa iyaakum waalghuluw nabigu calayhi salaatu wasalaam wa iyaakum waalghuluwa waxa uu tilmaamayaa digis caama waxaan idinka digayaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadgudubka alghuluwa fi ddiin fainamaa ahlaka man kaana qablakum الغلو في الدين واردينك كويدين كهريي بو نبي لي عليه الصلاة والسلام وحا هلاغي دينتي أي كحد قدبين نبي السعام أبو يري وإياكم والغلو في الدين وأري عامة سببتك أنت وحويا قرور حلو طوره ماشة داد حجك تكتين وأركتين دادك بربا كبهو دا كطورة هل كنا نبي قرور حكو طورة waad yaabaysaa kabta taalla dhagaxa weyna yaalla waxa yaal waa quluw qaar baa isla shaydaanku aad ha u dhintee wax waaweyn ku garaaca shaydaanku nacas maaha dhagaxa isu dhiga sideedaba sharcigu wixii uu jideeyo ayaa habboon in qofka muslimkii uu ku dhaqmo adigoo isla wanaaj adiga qururux ku tuur baa lagu yidhaahaa is odhanin waad wanaajinaysaa haddaad dhagax waaweyn tuurto nabiguna calayhi salaatu wasalaam diinta inaan lagu xadgudbin wuxuu kaga digayaa xataa qururux la tuurayana ha noqotee in diintu xuduud bay leedahay soohdimo ayay leedahay soohdinteeda inaad ilaaliso sida awgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy waar idinka kuwii idinka horreeyeyba waxaa halaagay ku xadgudubka ay diinta ku xadgudbayeen xadiidka imaam albazaar uu soo saaray
xaakimna uu saxiix yeelayo imaam dahabina uu ku waafaqayo sheekh alalbaanina uu ku raacayo waayo uu ka aamusay intuu sidooda u qoro ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa yaxmal hada alcilm min kulli khalfin cuduula yanfuuna canhu taxriif alghaaliin waintixaal almubtiliina wata'wiil aljaahiliin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa cilmigu iyo guluwinnimadu inay munaafis u yihiin inaanay isku meel gelin waxaa keena xadgudubku waa aqoon darro iyo jahli dadka ahlu cilmigii guluwiga ma sameeyaan walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay diinta tan cilmigeeda waxaa xambaari doona koox walba kuwooda cadaaladda ku sifooba kuwaasoo ka reebi doona buu nebigu leeyahay diinta ka reebi doona taxriifka ama weecinta ay samaynayaan kuwa xadgudbaya ama ghaaliinta ah nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kale wuxuu ku tilmaamayaa laba kooxood oo السنة لابن أبي عاصم وصوصاري الباني صحيح كنت الماميو لبا كوحوضا ومدى كمدي شفاعة إذا ما هليلان سلطان ظلوم غشوم نين مضحة أو ظلم بدن أو خيامة بدن أو ضدك غشك السماية شفاعة النبي كما غيب قليو إيا وغالم في الدين بالنبي قليو مي الدين تكو حد قدبه إمام مسلم حديث كوسن السؤال صاري وحوكت المام يا نبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون تنطعوا والمتعمق المغالون وهلاك سمي كوا سيدا حيل كدير لا اسكو ديين وحول باو بادي دونان إلى يكو حد قد بيان أحاديث ثاسي أي نصوت الممنوع من وحي وافقصين إلهي وحلي والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان طغيانكم شرع الإسلام لكم بنانا سيدا آن تقصيركم ولا تخسروا الميزان إلهي وليان وبنانين وحين قادن دون بعض الأمثلة تصالي الكوبان وددك النبي قال الله عليه الصلاة والسلام يمركه هر النبي سيدا و ترين قريي أما و طببريا ويقفك مسلم كا مركو العسبية هي cibaadaadkiiyo diinta uu barto ee aanu aqoontiisu aad u badnayn aanay raasukhin xamaasku inta badan xamaasadda tirada badan leh waxay ku kaliftaa inuu xadgudub badan sameeyo waxaa arki doontaa nebi maxamed oo saxaabada hahaya markaasi oo ka ilaalinaya inay xadgudbaan iyagoo ama cibaadaadkii soontii salaadii cibaadaadkoodii raba inay aad u sameeyaan laakiin ay uga muuqato nebiga calayhi salaatu wasalaam in xadgudub uu ku jiro مثال حديث كشيخين كصوصارين يا إمام أحمد بقى نبي عليه الصلاة والسلام أيا وحلو كان عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص أيا وحليه هي أبهي أيا قبل قريشي يقوريي ورير في عن كدلتي عبد الله هنا وحكم ده أن من كان دلني يرضى هي مركزي كو عبادة الصحابة دلني يرضى عبادة بدن لو كتير أبيه بقى وجوريه مركا إن قريشية ده إن أنت مركي له جوريه أبيه وعمر بن عاص الصحابي كلاهي وحضر سنة إن كيسو سيدو عبادة ديسو أربع حد جدب كوكانتا هبين كي أراس كمركي إن أنت له هويي أيو الصبح يضيق وجبده ويجي وحده بالورق ما في عنته وانا بطغى بنابيت لي عبد الله يقورن بيولي يا حال كيس واحد تري حال ودن واتكني نعم العبد لربي وأضان في عن بيت لربي وصلاة بوتاقنا لكن فراش كلام ما يقانو تفتيد أنا ما تهابن بيكوتري ننكي أروس كاها حالة الله أروسي قوري جيسا وصلاة بيسلا نحتاج shaqada kale laga rabay salaad buu waday ilaa waagiis uu gabariyay abihi subhi markii uu soo waraystayna waxay tireen waa ni'mal abdu li rabbi allihiisa si fiican buu caabudaa laakiin furaashka reernimana garan maayo taftaydana muu arag bay ku tiri Amr ibn Aas sidoo inankiisu sheegayo aabba ii yimi buu yidhi markaasuu imaagay buu yidhi wacadani bilisaani carabku igu qaniinay buu leeyahay ama واسمعني هجرة ووعاي
odaygii subaxii waa caayay buu yidhi markii uu ii yimi wuxuu yidhi inan reer ka dhalato qurayshe baan kuu guuriyey markaasaad caddishay oo cidlo kaga dhaqaaqday soo maaha buu yidhi waxaaga ina keen war nebigu uu kaxeeyey markaa cabdillaahi ibnu camar ibnu caas nebi maxamed baa loo geeyey calayhi salaatu wasalaam isagoo la wado nebigu calayhi salaatu wasalaam ashtakadii markii loo sheegay ayuu yidhi yaa cabdallah kayfa taqra' alqur'aan kayfa taqra' alqur'aan cabdallow qur-aanka sidaad u akhridaa buu yidhi dee habeenkii baan khatimaa buu yidhi habeen kasta waa dhammeeya qur-aanka sidaad u akhridaa waa dhammeeya wuxuu nebigu ku yidhi kayfa tasuum sidaad u soontaa wuxuu yidhi maalin kasta waan soomaa maalinba ima dhaafto dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi waxaad yeeshaa soonka maalmuu u tilmaamo qur-aanka buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam 40 casho ku akhri 40kii maalmood bil iyo 10 habeen mar dhammee markaasuu wuxuu yidhi innii astatiic aktar min dalik ilaahay rasuulkiisiiyo anigu intaa in ka badan baan samayn karaa markaasaa la yidhi haddaba bil ku akhri waa riwaayadda imaamu axmed siday sheegayso haddaba bil ku akhri wuxuu yidhi ka badan baan yeeli karaa markaasaa la yidhi haddaba subciyo usbuuciiba mar jumco kasta mar dhammee ka badan baan samayn karaa buu yidhi wuxuu nebigu ku yidhi haddaba 3 maalmood ku akhri markaasuu yidhi ka badan baan samayn karaa 3 wax ka yar qur-aankaba lama fahmo buu nebigu ku yidhi 3 haddaad hoos u sii dhaafto qur-aanku iska uun wax la yeedhinayo kaa noqonaya fahmi mayside 3 ha ka badinin buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam soonka buu ku yidhi waxaad soontaa bishii 3 maalmood iska soon markaasuu yidhi ka badan baan awoodi karaa ka badan baan awoodi karaa siduu soo waday ayaa waxaa la yidhi haddaba siyaamu daa'uud soon nebi daa'uud soonkiisiyo kale oo ah maalinna inaad soonto maalinna afurto nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi yaa cabdallah ina liahlika calayka xaqa walizawjika calayka xaqa walidayfika calayka xaqa walinafsika calayka xaqa faaati kula dii xaqin xaqa riwaayadda imaamu axmed baynu akhrinaye wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam cabdilaahow reerkaagu xuquuq bay kugu leeyihiin oo martidu xuquuq bay kugu leedahay oo naftaadu xaq bay kugu leedahay ee cid walba xaqeeda sii yacnii dadka guluwigani uu ku dhaco ama xadgudubkani uu ku dhaco waxa weeyaan qayb ka mida diintaa la qurux badata dabeetana qaybtaasuu mundafic ku noqdaa qaybtaasuu si weyn u dhex galaa taasaa waxay abuurtaa qaybo badan oo diinta ka mida inuu ku xadgudbo markaasiyo ilaabo nebigu calayhi salaatu wasalaam wiilku sidan kula taliyey cabdilaahi cimrigiisaa raagay nebigu uu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi ibnu camar waa dambe ayuu calaacali jiray markuu gaboobay oo wuxuu odhan jiray yaa laytanii qabiltu rukhsata rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam yaa laytanii jeclaan lahaaya buu leeyey bal maan aqbala buu leeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam rukhsadiisii waayo saxaabadu may jeclayn cibaadaadkii uu nebigu kaga tegay calayhi salaatu wasalaam markuu geeriyooday gadaashii inay ka tagaan markanna waa gaboobayoo sidii dhallinyarada maaha waxaa ku adkaatay inuu maalinna soomo maalinna afuro waxaa ku adkaatay acmaashii uu samaynayey walidaalika waagiisii dambe waxaa la yidhaahdaa intuu soomiba kari waayo ayuu odhan jiray soonkaanu yaro xoogaysanaya intuu wax cunaabuu maalmo istaba raacin jiray hadhowbu haddana yidhaahdaa waa inaan soo qalleeya ilaa nebiga ayuula ballamay inaan maalinna soomo maalinna afure maalmihii aan israaciyey maalman leeg waa inaan soomo isagoo ku calacalaya maan qaata nebiga calayhi salaatu wasalaam taladiisii nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahay xadiista ka asaxday ina hada diina matiin waa diintani waa shay adag buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam fawgaluu fiihi birifq war si fudud u gala faina almunbata laa ardan qatac walaa dahran abqa mahmaahda tan erayga noqday oo tilmaamaya munbadka waa munqatica waxay yidhaahdaan carabtu ninbaa safarkii uu dadka la gale uu la socday ayuu gaabiyey dabeetana wuxuu is idhaad ka wada dheeraysi daabaddiisiibuu aad usha ula dhacay cabbaar bay carartay wuxuu usha la dhacay cabbaar carartaba wadnaha go'ay dabeetana way bakhtiday dabeetana wuu istaagay
in yarbu markii hore soo degdegay laakiin natiijadiisu waxay noqotay maxay munqatic inuu noqdo munbat dabeetana nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fa ina almunbata kaa munqaticee daabadiisii noocaa u galay laa ardan qatac walaa dahran abqa dhul lama jarin baa la yidhi oo socod ma samaynin neefkiina ma daynin oo ma hadhin yacnii labadii dhandhanna ma gaadhin qofka diinta xuduuddeeda intuu is dhaafiyo marka hore xamaasaddu ay digdigta ku qaadaa meel dhaxun buu ku gebagaboobaba la yidhaahdaa ma dhammaystiro meel dhaxun buu warkiisu ku koobtaa waxaanu noqdaa kaa nebigu uu leeyahay laa ardan qatac walaa dahran abqa dhul lama jarin ee neefkiina ma daynin waa runtii tashbiih aad u cajiiba saxaabadii cilmiga lahayd iyaga laftoodu saasay isu tareengaraynayeen waxaa jirta nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu saxaabada walaalaynayay raggii uu walaaleeyey waxaa ka mid ahaa salmaan alfarisi iyo abidarda dabeetana abidarda baa wuxuu soo booqday gurigii salmaan buu yimi wuxuu arkay haweenaydii abidarda uu qabay oo aan ka muuqanin haweennimadii yacni haweenku marka ninkoodu joogo waxaa la yaqaanaa inay qurxoon yihiin oo isqurxiso laakiin markay cidlada iska joogtee keligee tahay inay mutabadala tahay odaygeediina waa jooga gabadh isdhowrta oo ishagaajisay oo yacnii gabadhnimo isu dhigtayna kama muuqato dabeetana wuxuu yidhi maa sha'nuk naa maxaa kugu dhacay buu weydiiyey markaa salmaan gabadhii waxay tidhi akhuuka abudardaa laysa lahu xaajatun fi dunya waxay tidhi salmaanoo walaalka abudardaa dee adduun ma rabo adduunyada baahi uma qabo dabeetana abudardaa baa yimi abudardaa baa walaalkii baa ileen u yimi raashin sameeyey markaasuu intuu raashinkii soo dhigay buu yidhi salmaanow cun anigu waan soomanahaye waana sooman yihi islaantina cidlay fadhidaa gurigiina waa la joogaa salmaan wuxuu yidhi cuni maayo haddaanad ila cunaynin soonka sunnaha waa la jebin karaa waa la iska cuni karaa cunnada haddaanad ila cunin buu yidhi cuni maayo wuu la cuna markii uu la cunay ayuu habeenkii reerka u hoyday salmaan habeenkiiba markii in yar la jiifee la seexdayba abudardaa baa salaadiis u taagay salmaan baa intuu marada ku dhigay yidhi waar seexo waa seexday cabbaar buu haddana soo booday waa ku dhigay waar seexa buu ku yidhi dabeetana wuu seexday markii habeenka intiisii badnayd ay tagtay ee wakhtigii dambe ay ahayd ayuu yidhi kac haddaba iminkoo tuko wakhtigii salaadda subax wakhti ka yaro horreeya ayuu yidhi kac haddaba iminka oo tuko wuu tukaday labadoodiiba waa wada tukadeen markaasuu wuxuu salmaan ku yidhi abidardaa isagoo la hadlaya inna lirabbika calayka xaqa abidardaayow rabbi xaq buu kugu leeyahay naftaaduna xaq bay kugu leedahay reerkuna xaq buu kugu leeyahay ee qof kastoo xaq leh xaqiisa sii warkii ayuu qaaday markaasi abidardaa oo waxaa loo sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam dabeetana nebigu wuxuu yidhi sadaqa salmaan run buu sheegay salmaan sida uu sheegayo yacni qofka mu'minka waxaa looga baahan yahay in cibaadaadkiisa diintiisa mucaamalaadkiisa wixiisuba inay sharciga waafaqsan yihiin salaad baan tukanayaa waxaan dayacayaa xuquuq kale ma shareecada kuma soconayso waxayna kaga filan qaar baa fahamku ka qaldamay maangaabnimo daraaddeed oo iyana xadgudbay axaadiista maalan nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan waxaa ka mid ah nin baa u yimi nebiga dulkhuwaysara la odhan jiray dabeetana nebigu isagoo xooladad u qaybiyey buu wuxuu ku yidhi yaa muxamed qad ra'aytu maa sanacta fii hada alyowm maanta waxaad samaysay waan arkay nebigu wuxuu ku yidhi ajal fa kayfa ra'ayt aragta iyo maxay kuula muuqataa saad u aragta wuxuu yidhi lam araka cadalta maan arag buu yidhi adigoo cadaalad falaya nebi maxamed buu ku leeyay calayhi salaatu wasalaam maan arag adigoo cadaalad falaya wayxak in lam yakun ilcadlu cindii facinda man yakuun waar hooge buu nebigu yidhi haddaanay cadaaladdu aniga agtayda oolin kumay cadaaladdu agtiisa taalla cumar binulkhataab baa yidhi aan dillo ha dilina iska daa buu yidhi kan koox baa dhabarkiisa ka soo bixi doona ama shiico koox buu yeelan doonaa diinta uga baxda sida gamuunku ama
waxaan la tuuro ee qaansada laga ridaa leebku sida uu ramiyada yacni saydka ama waxa la ugaadhsanayo siduu uga baxo ayay diinta uga bixi doonaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xataa tamhiilka eeg nebigu wuxuu leeyahy sida gammuunku uu u dhaafo intaad ugaadh toogatay xabadda aad ku dhufatay xabaddu ay xagga kale uga baxdo sidaasay diinta uga murkudi doonaan buu nebigu leeyahy yacni wuxuu tilmaamaya waa dul degdegaya oo iyagoo xiimaya intay diinta galaan ayay xagga kale uga baxayaan kuma sugnaanayaan amase kuma joogayaan waa ghuluwiga ama xadgudubka wax kan keenaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa xadgudubku inuu yahay waxa keena dad badani inay diintooda xataa shirka ku dhacaan maalan cibaadaadkii hore ee asnaamtii hore la sameeyey maxay ahaydun dad saalixiin oo wanaagsan oo la jeclaado jacaylkoodii lagu xadgudbay jacaylkii dadka saalixiinta iyo awliyada ilaahay ayaa lagu xadgudbay ilaa markii dambe la yidhi sawir yaraan ka samaysanno dabeetana sanam yar laga samaystay kadibna iyagii la caabuday waa caamadeenna qaarkood siday xabaalaha u galeen nin sheekhoo caalimo muslima oo ilaahay yaqaanay awliyada allana laga yaabay inuu ka mid ahaa ayaa dadku kalgacalkoodii galay waxay ahayd kalgacalkeedu hadduu awliyadayna qaado inaynu dhahno ilaah u naxariiso muslimiin naga horreeyey oo diintana soo gaadhsiiyay ahayde laakiin inaad u qaadato inuu isaguba wax taro muxuu wax ku taraa isagaaba dhintay oo u baahan inaad ilaahay u barido oo dadka mu'miniinta waxaa lagu yaqaanaa kuwa nooli inay kuwa dhintay ilaahay u sii baryaan oo qof kasta oo mu'min oo dhintay adigay tahay inaad ilaahay u barido subxaanahu wa tacaala oo ducadaada ilaahay ugu dembi dhaafo laakiin kii dhintay inaad isaga dib wax uga soo talabtaa waa waxaan sharciga ku waafaqsanayn walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayey caaisha iyo caaisha waxay ka sheegtay umu xabiiba iyo umu salama ayaa waxay ka warrameen kiniisada ay xabashida ku soo arkeen sawirro ku dhadhajisnaayo wax markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina ulaa'ika ida kaana fiihim rajulu saalixu famaat kuwaasi buu yidhi waa kuwa nin wanaagsani oo dhexdooda jooga haddii uu dhinto xabaashiisa korkeeday ka dhigaan meel lagu cibaadaysto sawirrana way u sameeyaan dadkana iyagaa ugu shar badan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa meesha ka muuqata uu nebigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamayaa ina addiina yusr walan yushaadda diina axadun ilaa halabah waar diintu waa fududay buu nebigu yidhi qofna iskuma adaadkeeyo ilaa iyo way ka xoog badataa ghuluwigu markaa dhan badan buu geli karaa cibaadaadkuu geli karaa caaisha waxay leedahay nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixaynka ku soo arooray gabadh baa iyadoo caaisha nebiga la joogtaa waxaa loo sheegay gabadhi u soo gashay ama gabadh caaisha la joogtuu nebigu u soo galay markaasaa waxa uu yidhi nebigu man haadihi waa tuma tan kula fadhidaa waxaa la yidhi waa heblaayo waa gabadh salaad badanoo saan bay u tukataa kan bay tukataa waxbaa laga warraba salaadaheedii iyo wax mah buu nebigu ku yidhi calaykum bima tutiiquun naa warkaad sheegaysa u kaadi cibaadada intaa awoodaan sameeya buu nebigu leeyahy yacni lagama warramayo waajibaadkii 5 salaadood iyo kuwa lagama warramayo laakiin cibaadada kale dheeraadka inta aad awoodi karto samee buu nebigu yidhi ilaahay baan ku dhaartay buu nebigu yidhi alla idinkama daalaya inay idinku daashaan mooyaane acmaashana diinta waxa u khayr badan inta la joogteeyo ee cibaadadiina waxaa ka dhigtaan waxaad joogtayn karto haddaad tidhahdo iminka habeen kasta waa inaad 100 salaadood tukataa imsaad wadaysaa markaad bil waddo ama sanad waddo haddaad dib u firayso habeenka dambena iskagaba tagtaba salaatuleylka la tukanayaba waxba maad kordhinin in yaroo aad joogtayn karto ayaa ka roon sidaa awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam cibaadaadkaasi saxaabada isagoo tilmaamaya ayaa xadiidka saxiixayn ku qoran nin buu arkay labada dhinac lahayo soconaya markaasuu nebigu yidhi maa baalu haada war kan maxaa ku dhacay waxay dhaahdeen wuxuu nadar ku galay inaanu lugayninba dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi ina allaha can tacdiibi hada nafsahu alghaniy waar kan naftiisa cadaabku cadaabaya ilaahay hani buu ka yee waxaad tidhaahdaan waxaad doonto iska fuulo soco waxba ha ka cabsanine cibaadaadku markaa qofku inuu taqashuf sameeyo koox saxaabada ka mid ah 3 ninoo saxaabada ka mid ah gurigii nebiga tegey markaasay waxay yidhaahdeen dumarkiiba nebigay waraysteen bal warrama markaasaa loo sheegay warkii nebiga calayhi salaatu wasalaam warkii cibaadadii nebiga looga sheegaabaa laba yaraatay
deetana waxay dhaheen war nebiga isaga ilaahay dembigiisa hore iyo kiisii dambaba u dhaafay waa falsafa cusub nebiga ilaahay dembigiisii hore iyo kii dambaba wuu dhaafay haye intaasna wuu sameeyaa dee inagu ilan dembigiin baynu xambaarsanay aan ka badinna bay yidhaahdeen inta nebi maxamed sameeyo in ka badan aan la nimaadno oo maxaynu samaynaa mid baa wuxuu yidhi anigu horta gabadh dambe guursan maayo anigu haweenka waxa la yidhaha waa ka zaahidaya dumar laygu arki maayo midna wuxuu yidhi aniguna cunnadan iyo waxan baa rabashka keentay hilib dambe afkaygaba gelin maayo midna wuxuu yidhi anigu habeenba seexan maayo waa soo jeedaya nabiga calayhi salaatu wasalaam warkii loo sheegay maa baalu aqwaamin qaaluu kada warduul arrinkoodu muxuu yahay waxaaya waxaa ku hadlayaa buu nebigu yidhi war anigu waan seexdaa waanan tukadaa waan soomaa waanan afuraa haweenkana waan guursadaa ee faman ragiba can sunnatii falaysa minii war sunnadayda ninkii ka weecda anigaygama mid aha buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam yacni diinta ta nebi maxamed baa tusaale u ah uma baahnid adigu markaa inaad istidhaahdo ariiq cusub ama wax cusub jidee wax kastoo cusub oo aad jidayso waxay keensanaysaa inaad ariiqii kaga baxdo saxaaha axaadiistan oo dhan waxaan u akhrinayaa inaynu fahamno guluwiga xataa cibaadada lagu sameeya xadiidka bukhaari ku yaalla ibnu cabbaas baa wuxuu leeyay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo khudbadaynaya ayuu wuxuu arkay nin taaganuun markaasuu yidhi war waa kuma kani waxaa la yidhi waa abu israa'iil ninkii la odhan jirayoo wuxuu ku nadray an yaquuma walaa yaqcud walaa yastadilla walaa yatakallama wayasuub wuu nadro wuxuu ku nadray anigu waan taagnaanoo weligay fadhiisan maayo hadh iyo hoosna hadhsan maayo naftan baan cadaabayaa hadlina maayo waan soomanaanayaa buu yidhi soonuun baan ku jirayaa fadhiga iyo nasashada iyo hadhka iyo waxaasoo dhanna waan iska daynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi murhu falyatakallam waliyastadil waliyaqcud waliyutima sawmah u sheega buu yidhi waxaa amartaan inuu hadlo oo hadhsado oo fadhiisto soonkiisana ha dhammaystiro uun yacni soonkuunbaa anfacayee waxaan kale tacdiiba uu samaynaya waxba kuma jiraan guluwigu wuxuu galaa xataa in su'aasha aad badiso wax kasta aad tidhaahda ka gugaadho su'aashooda aad tiro badiso nebigu calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi xaja markaasaa nin soo boodo wuxuu yidhi ma sanad walba ilaahay rasuulkiisiiyo dabeetana uu iskaga jeestay nebigu lama hadale xagga kaluu ka soo maraa ma sanad walba markii dambuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaan haa ku odhan lahaa way idinku waajib noqon lahayd inaad sanad walba xajtaan manaydan awoodeen waar ka taga buu nebigu yidhi inta aan idinka tegey oo wixii aan idin farayna la yimaada waxaa ka awoodaan wixii laydinka reebayna ka reebtooma nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa isagoo tirangaray masaa'ilkan waxaan u tilmaamayaa inaad fahamtaan weligeedba inuu jiray qof xamaasadoodoo isdhaahda cibaadada tiro badi laakiin waxay lahaayeen saxaabadu murabbiin iyo dad celceliya walidaalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu soo galay guriga ayuu wuxuu arkay xadhig guriga ka soo dhex laalaada markaasuu yidhi xadhigga kani waa maxay markaasaa la yidhi zaynab baa guriga ku xidhatay waa haweenaydiisii zaynab baa ku xidhatayoo salaadda siday u wadda markay daashee kici kari weydo ayay xadhigga qabsataayoo ku kacdaa si ay salaadda u tukato wuxuu nebigu ku yidhi xadhiggana fura naa intaad firfircoon tahayna tuko firfircoonidu markay kaa dhammaatana iska seexa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laguma odhanin noocan sameeye iska seexa markaana kullu daalik waxaan uga jeednaa inaan dhowr shay tilmaamno wakhtigoo kooban daraaddeed nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu inoo tilmaamayaa inaanay bannaanayn qofka mu'minka ahi diinta waxa saaran waxaan ahayn inuu dusha iska saaro guluwiga kani markaa wuxuu keenaa ilaahay wuu kaa fogaynaya kuuma dhowaynaya haadii waaxida laba camalka ma joogtayn kartid ee berri unbaad joojin waa muddo yar intanaad maqiiqan tahay saa dambuunbaa lagu arkaya adoo barafoobay saddex waa daliil wuxuu u yahay bay yidhaahdaan caqli xumo iyo shaytaanka inuu ku wato afar waxay yidhaahdeen daliil waxay u tahay guluwigu jahliga iyo aqoondarrada diinta kaa haysata shan wuxuu keenaa bay yidhahdaan waswasadatan qofkoo wax walba siduu isu leeyahy isku adkee marka dambe waswaaska gala sidaa kaa intuu biyaha galayle inaan maydhiyan kala garan maayo maxay tahay asbaabta keentay in guluwiga kani uu dhaco
asbaab caama baa jira oo dadku inta badan quluwigu keeno. waxaa ugu horeeya aljahlu wa cadamu alfiqh, aqoon darro iyo fiqi yari. aqoon darrada iyo fiqi yaridu waxay keensanaysaa haddii dadka aqoontu aanay ku badnayn sharciga in yar buu meel ka ogaadaa, dabeetana intaasuu diintii oo dhan moodaayo jus-iyadaa yare uu ogaaday qofka ka hadhadlana wuxuu arkaa inuu caalimiye ama sheekhiye ama la koox yahay. diinta inteeda kale cidda ka hadashoo dhanna isdiraa wuu quurhsadaa oo inaanu waxba ogeyn. maalan waxaa laga yaabaa masalada jihaadka inuu waxoogaa ka akhriyay ama waxoogaa ka fahmay, idan wixii baabkaa ka warramana wuxuu arkaya inuu sheekh yahay. diinta inteeda kaleo dhan wixii ka warramana nin iska hurda oo aan dunidaba kala ogeyn iyo waxa ka socda oo iska maangaaba buu arkaya. waxa keensada quluwigan tirada badan leh dhammaantii waxa weeyaan jahli. waxa keensada waxaa ka mid ah waa murshid la'aanta. murshidku yacnii qofku diin baranaya wuxuu u baahan yahay cid cilmi leh oo gacan qabata. saxaabada xamaasaddu markay qaadato mid yidhaahda hilib cuni maayo, mid yidhaahda gabdha arki maayo, iyo mid yidhaahda salaada joojin maayo, mid yidhaahda sara joogaan ku cibaadaysanaya. dadkani kaamay caqli yarayne saxaabadii nebi maxamed bay ahaayeen, kaama diin yarayne kuwa ilaahay rumaysan bay ahayn, bal nebi maxamed wax ka dhegaystay. laakiin xiisihii iyo xamaasaddii baa keensaday inay halkan ula boodaan. xiisahan iyo xamaasaddu qof kasta oo iyaga ka dambeeyeyna markaa wuu ku dhacaya. waa la arki karaa dad badan oo ama dhallinyaro ama odayaalo ama cidduu doontaba oo xiisahan iyo xamaasaddu intay qaado sida tan u tallaabsanaya. laakiin dadku wuxuu u baahan yahay ciddii qori lahayd ee toosin lahayd ee tarbiyayn lahayd ee dhili lahayd. waa kuma kaasi? waa caalimka rabbaaniga ah. siduu nebi maxamed kuwan u dhilayay calayhi salaatu wasalaam ee waxu barayay ee u toosinayay, haddii markaa bulshada dhallinyarada ahi ay ka fogaato dadka cilmiga u saaxiibka ah, oo ninka dhallinyaradii nin dhallinyaro isaga la da'ah ama dhowrka baabe uu akhristay isna la akhristay oo isku baabkuun yaqaaniin uu ku xidhmo oo kaasi sheekh uu noqdo iyo mufti, waa isla ambanaya. ambashadu ma aha inaad xagga sokoo qura u ambato oo aad ka lunto macaasida waaweyn aad ku dhacdo, ee ambashada waxay keensanaysaa xataa inaad diinta ka murkuddo, inaad ka dhex baxdo, jahlina uu kaa dhex saaro. walidaalik waxyaabaha keensanaya waxaa ka mid ah awdaacdan maanta lagu jiro ee munkarka iyo fasaadka uu tiro badan yahay. qofkoo dhallinyaradoo isdhaahdaa waajibka ku saaran waa alamru bilmacruuf, laakiin aan garanaynin alamru bilmacruuf maqaayistiisa iyo waxa lagu qiimeeyo saa wax loo wado. waxyaabaha keena waxaa ka mid ah taxadiyaadka maanta dunida yaalla. gaal aan naxaynin oo istifzaas ku samaynaya, dadka raba inuu fudaydsado soo kiciyo si uu aqraadiisa u fushado, wax u laayo, wax u gumaado. iyo dowladaha islaamka oo hurda ama baqaya ama aan waxba samaynaynin, iyo culammada badhoo lagaba yaabo inay masaa'ilka qaarkood khafla kaga sugayeen awdaacda caalamka iyo siday u socoto. dabeetana wiilka dhallinyaradu is idhaahdo oo diintaba miyaa adiga mooyaane cid kale u soo hadhay, inaad adigu uun xambaarta mooyaane ma cid baa soo hadhay uu is idhaahdo. xamaasku uu ka rido markaasi wax badan oo aan sharcigu bannaynaynin. waxaa keeni kara baynu leenahay iyadoo ay dhici karto inuu sida tan waracnimo moodo. alguluwu walwarac wax yar baa u dhexeeya. maalan inuu qofku is idhaahdo weysayso ilaa halkan maydh, laakiin inuu qofku is idhaahdo weysada ku hubi aw 20 jeer maydha ma waxbay soo kordhinaysaa? waracnimo ma aha. iyo weysadii aad leedahay fiicnaysi ma fiicnaanayso, ee waxa laga yaabaa waxaanad wadoo dhami bidac iyo qashin iyo waxaan diinta ku bannaanayn inay yihiin. waxaan leenahay cilaajka ugu fiican ee uu heli karaa qofka waxa lagu qiimaynayaa ma aha inta uu cibaadaysanayo ama salaadiisa badnideeda. waayo nebigu gabadhii salaada badnayd weeyaan tuu la hadlayay, ninkii soonka badnaa weeyaan kuu la hadlayay. qofku inuu soon baday ninka dhallinyarada ee la midkii waxa laga yaabaa inuu ku qiimeeyo u idhaaho war ninka soon badan iyo cibaado badani ma jiro, wadaadkani ma isagaa faralka mooyaane wax kalaba sooma, muxuu kula hadlayaa ninka kan? kaa aan faralka soomine hadduu aqoon dhaamo isagay tahay inuu xadeeyo. waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam khawaarijta markuu ka warramayey yuu la hadlayay, wuxuu la hadlayay abibakar iyo cumar iyo rag ah. muxuu ku lahaa? salaadooda salaadiina u xaqiraysaan buu leeyay. bal ninka abibakar iyo cumar iyo ka salaad badan qiyaas, iyo cuthmaan iyo saxaabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. khawaarijta markuu sifaynaya wuxuu ku tilmaamayaa
salaada iyagu tukadaan khawaarijtaas salaadiina waa u xaqiraysaan waxaa la yidhahaa calaamada nimanka khawaarijta calaamaadkii ay macruuf ku ahayeen waxaa ka mid ah wejigaa wada madooba say u cibaadaysanayaan halkani way jirfaysan jirtaa la yidhi cibaado daraaddeed waana nimankii saxaabada laynayey saxaabadii nebi maxamed bay laynayaan wejigana dhulkay ku hayaan maxay ku haystaan waxay rumaysan yihiin inaan saxaabadu diinta si fiican u fahmin oo si fiican aanay u wadin oo masalada alxaakimiya inay wax qalada ay ka fahmeen meesha marka maxaa ku jira wuxuu kuwaa nebigu ku sifeeyey leebku sida uu uga dhex baxo ugaadha aad ugaadhsanayso ama xabadda aad ku riddaa say uga dhex baxdo si la mida inay diinta uga baxayaan xataa surcada waa fudaydka ay uga baxayaan baa la tilmaamaya waxa muhimkii wuxuu yahay diinta waxay u baahan tahay in lagu dhaqmo sax dadkan badan ee tasayubka sameeyey yacnii fudaydiyey diinta iskaga tegey si saxa maaha waxay ku socdaan laakiin waxay u baahan tahay ku dhaqankeedu cilmi fulinteedu waxay u baahan tahay cid aqoon-yahana oo cilmi leh oo khabiira walidaalika haddaynu rabno guluwiga inaynu cilaajinno qaabka reer galbeedku ay u cilaajinayaan ma cilaajinayo qaabkay u daweeyaan ee xadhig iyo dil iyo afkaarta sideedaba xoog laguma daweeyo afkaarta waxaa la yidhaahda qofka maskaxdiisa gala qofka ku qanacsan waxa kan waan ku dilayaa wax badan kama tarto isagaaba laga yaabaa inuu dhimasho diyaaru yahay maxaad dilaysaa dab isagu dhimasho diyaaru yahay maxaa dilistaadu ay samaynaysaa qofka bini aadamka waxaa lagu qancin karaa waxa weeyaan mabaadi'dan in lagala niqaasho in lagala doodo in wax la baro cilaajka qudhee la garan karee tataruf ama guluwi lagu daweyn karaa waxa weeyaan dadka ahlu cilmiga in loo ogolaado inay wax sharxi karaan wax akhriyi karaan wax daraasayn karaan reer galbeedku cagsigay u carareen oo ah wixii diin ku abtirsada khaasatan inta culimmada in afka laga xidho kuwan yaryar iyo intana in xoog lagu daweeyo inay sii karta mooyaane wax iska bedelayaana ma jiro meel ay cilaajiyeen oo dunida ka jirtaana ma jirto inkastoo lagaba yaabo inay iyagu gardaran yihiin inta badan galbeedku siday u wadaan haddana meel ay cilaajinayaan ma jirto haddii la rabo in cilaaj la sameeyo markaa cilaajku waa fi bilcilm nabigu calayhi salaatu wasalaam dadkii tatarufka sameeyey ama guluwigu ku dhacay mana xidhin mana laynin mana waxna kale eh wuxuu sameeyey inuu tarbiyeeyo inuu wax u sheego in cibaadadu siday saxa ku tahay tilmaamo in waxa saxa iyo waxa qaladka uu sheego idan qaabka qudhay wax u saxmi karaan waa in dadka diinta ahlu cilmiga la fasaxo inay wax sharxi karaan wax tarbiyeyn karaan wax badan ay akhriyi karaan murshidka rasmiga unbaa masaa'ilkani waa masaa'il cilmiya sharxi kara dhallinyaradana waxaan kula talinayaa dhammaantood da'yaridu iyo tajriba yaridu iyo aqoon yaridu intuba waxay keentaa in badan inuu qofku kaco oo kufo walidaalika waxaa u baahantihiin cilmiga si mikroya inaydan u gelin si makro ah inaad u gasho si ballaadhan waxaa laga yaabaa mas'ale iyo inaad 2,000 oo kitaab ka baxdido intaasoo quri kuu muuqato laakiin noloshu hal mas'ale maaha noloshu way ballaadhantahay ninka caalimkiina si weyn oo ka ballaadhan saad wuxuu eegayso wuxuu eegaa dhallinyaradana waxaan kula talinayaa dadka ahlu cilmiga diinta ka qaata oo weliba kuwa ahlu cilmiga diintooda lagu kalsoon yahay kuwaasi diinta ka qaata guluwiga sida qudhe lagaga bixi karaa markaasi waa cilmi la helo iyo murshid qof ahlu cilmiya oo wax tarbiyeeya oo tarbiya saxiixa wax ku tarbiyeeya وصلى الله على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين